السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام ميل كستو جوجتان iyo si kasta oo aad noo daawanaysaan daawadayaal dadka xanuunada dhiig karka iyo macaanka qaba waa ka mamnuuc in ay isticmaalaan waxyaabahan aan mowduucan aan idin kala wadaagi doono hadaba maxay yihiin waxyaabaha mamnuuca ka ah dadka dhiig karka iyo macaanka qaba ee mowduucan aan idin kugu soo gudbinayno iyo waliba sida loo isticmaalayo waa kan Sheikh Xamse Ahmed oo inoo faahfaahiya marka hore insha Allah waxaan idin ka codsanayaa qofkii macaan qaba amba qofkii dhiig kar qaba labada xanuun qofkii qaba fiidiyogan asagu shaqo kuma laha daawadana ma isticmaali karo qofkii macaan iyo dhiig kar qaba marka barakallahu fiik hadii aad dhiig kar qabto amba aad macaan qabto daawadan ma isticmaali kartid kumana qusayso iska ilaali adiga marka tuumbooyinka jidhkaaga maraya ay xidhmaan amba midciruhu ay ka xidhmaan amba insha Allah hadba sidaad u garanayso xidhmaha ay ka xidhmaan waa xanuun aad iyo aad u daran waan xanuun halisa oo loo dhinto tuumbooyinka wax qaada markay ka xidhmaan marka insha Allah sida ugu fudud ee aad isku daaweyn karayso adigu iyo sidaad isaga daaweynayso ayaynu maanta soo bandhigaynaa barakallahu fiikum marka hore waxaan ka codsanaynaa hanaloo duceeyo annaguna waa idin soo duceynaynaa ilaahay dambigeena iyo dambiga waalidiinteena Allah ha dhaafo ilaahay subhanahu wa ta'ala khaatimada khayr ha inagu khatimo xil xun baa lagu jiraa Allahumma aamin qof walba muraadkiisa aan macaasi lahayn Allah ku arsaaqo إن شاء الله تعالى حيدمها أنبا مدعيره مركا أي كاحد مار واحد سمين الساعة واحد سوق هذا الساعة هل كوب وبيئة هل كان واحد كتيرة هل كوب وبيئة هل كان كوب وبيئة واحد قدر الدونتا هل قاطه وهل قاطه أو سنكرة وقاطه عنتظر القوة هل كان قاطه يبقى بيسا كتب waxa aad ku kor dari doontaa hal qaado oo ah milix waa border soo waa milixdii markaasi ayadu borderka ahayd markaas borderka ahayd hal qaado oo milixa ayaad ayadana ku daraysaa kadib intaas markaad ku darto waxaad soo qaadanaysaa jeexli macaan abaad ku ayaad soo qaadanaysaa kadib waad ku kor dhuujinaysaa jeexli macaana waad ku kor dhuujinaysaa markaad ku kor dhamayso insha Allah ta'ala waad qaadaysaa dabka ayaad saaraysaa dabka markaad saarto waxa aad walaaqaysaa oo aad dabka u deynaysaa qadar ah 2 daqiiqo waa dab xooga markaad saarto qadar 2 daqiiqo abaad u deynaysaa kadibna saas ayaad u walaaqaysaa 2 daqiiqo kadib waad shaandheynaysaa marka aad shaandheyso subaxa hore adceedu marka ay soo baxdo adceedu markay saas u soo baxdo ayaad biyahaas bismillah intaad tiraahdo qac ka siinaysaa insha Allah ta'ala toddoba bari gudahooga dhammaan xiidmihii amba tuumbooyinkii amba midhicirihii ku xidhnaa ee wasaqdu qabsatay amba se waxaad yaraantaadii cuntay ay xidheen ayaa insha Allah ta'ala ku wada furmi doona 7 cisho gudahood dhammaan tuumbooyinka jidhkaaga oo dhan way wada furfurmi doonaan intaas marka laga yimaado aniga ahaan walaalkiin Sheikh Xamsa anigu waan sameeyaa sanadkii mar ayaan sameeyaa biyahaas halka koobay biyaha baan soo qaataa halka qaada ee sonkorta abaan ku daraa halka qaada ee bilixda abaan ku daraa jeexali macaanta baan ku dhuujiyaa dabka ayaan saaraa dab weyn oo xooga qadar 2 daqiiqo baan walaaqaa kadibna waxaan la sugaa qoraxdu markay soo baxdo qoraxdu markay saas u soo baxdo ayagoo biyahan shaandeysan oo haddana aan shaandeeyay filter aan u sameeyay ayaan qac ka siiyaa intaan bisinka qabsado waxaan sameeyaa 7 bari baan sameeyaa haddii aad xitaa caafimaad qabto waxaad ka sii helaysaa caafimaad fara badan waxaanay ka hortagayaan dhammaan tuumbooyinkaaga mara jidhka oo dhan ayay safeynayaan kadibna waxaad noqonaysaa qof
hurdada markuu seexanayo ku raaxaysta markuu hadlayo hadalka ku raaxaysta markuu wax cunayo cuntada ku raaxaysta markuu wax cabayo cabitaanka ku raaxaysta ilaa waxa ina dhibaya waa tuumbooyinkan amba bidhicirahan amba saxiidmahan qofka xidhma ayaa dhibaato weyn ah ilaahay subxaanahu wa tacaala intii xanuunsan xanuunkaa ka dulqaado ayaamahan dambe xanuunkaas ayaa aada u badan oo aada layla soo xidhiidhaa marka insha allahu tacaala qasabadaha oo dhan dadka ay xidhmeen sidan ha sameeyaan dadka iska shakisanna sidan ha sameeyaan waa hagaag waxaan rajaynayaa inaad aada u wada fahanteen sheekh xamse axmed ayuu kaasi ahaa oo inoo faahfaahinayay sida markaa la isaga daaweynayo dadka mindhiciradu ay xirmaan amaba wasaq amaba waxyaabo kale ay xiraan iyadoo uu inoo sheegay waxyaabo aada u fudud oo guriga kuu yaalla oo aada isticmaali karto haddii aada isticmaashana aada waxaad isaga garan doonto hadduu allah awoodi leh ogolaado waad ku mahadsantihiin sida wanaagsan ee mar walba aada noola socotaan bulqaas media ayaad nagala socotaan fadlan haddii aad ku cusub tahay pageka bulqaas media ha ilaawin in aad like iyo follow aadna soo tiraahdo haddiise aad tahay macmiil soo noqday hanaga ilaawin in muuqaalkan aad sheergarayso oo asxaab badan aada la wadaagto si iyagana asxaabtooda kale ay ula wadaagaan halkaasna ay faa-iido ay uga helaan wixii tale iyo tusaale ah waxaad noogu soo qori kartaan dhinaca commenteska iyo messageska aada ayaad u mahadsantihiin rabbiga ha idinla jiro asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh